xubnahaas waxay ka hadlayeen ciidanka booliska ama ciidanka guud ee Soomaaliland waxay ka hadlayeen xarig loo geystay xubin ka tirsan xisbiga wadani waxay ka hadlayeen xaaladda degdega ah oo madaxweynuhu ku soo rogay 3 degmo oo dalka ka tirsan waxa kale ka hadlayeen dhulka madaxtooyada ee Soomaaliland laga dhisayo iyo doorashooyinka runtii waxa ay andara maanta Soomaaliland ay andara ku ah horta siyaasiyiinteenu nin dacaawo ma jiro maanta haddii cid dhacayso saddexda mas'uul shalay hadlay taariikh xun oo madoobi Soomaaliland ku leeyahay inay maanta Soomaaliland inta soo ristaagaan ay yiraahdaan xaaladana ka hadlaan horta ay andar Ismaaciil Yare oo shalay sheegay inuu ahaa wasiirkii ugu muddada dheeraa Soomaaliland Ismaaciil ciidanka nabadgelyaduna way og yihiin ama boolisku wasiirkii ugu foosha xumaa ee xil laga qaado buu ahaa arrimaha gudaha Soomaaliya wuxuu ahaa wasiirkii ciidanka nabadgelyada ama booliska ama SBU-da lacagtii yarayd ee habeen dhax ahayd ee la siiyay intuu ka cunay ay ku mudaharaadeen ka bacdina xilka lagaga qaaday Ismaaciil Yare wuxuu ahaa ninkii lahaa gudida la yiraahdo gudida xaaladda degdega ah ee qofka intuu soo qabto 24 saacadood gudahood ku xidhi jiray xisbiga kulmiye markuu talada qabsaday 2012kii si 2012kii wuxuu soo saaray xeer si meesha looga saaro gudidii ee isagu lahaan jiray waxaana la soo saaray xeer la yiraahdo xeer 51/2012 oo la yiraahdo xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada xeerkaas wuxuu ka saaray meesha in qof intuu soo xidho qof executive fulini isla markaana sidii maxkamadaha uu xukumo marka waxa la Ismaaciilow waxa fiican lahayd taariikhda dib u eegto intaad sheegayso wuxuu ciidankan u turayaa ciidankan jecelahay war ciidanka ka xoolihiisa cunaysay baad ahayd maanta Soomaaliland intaan anu arrimaha gudaha joogay mas'uulkii ugu badnaa ee dhul isku haystaan buu ahaa cid brave isku haystaan ee soo mara waa taariikh waxa jecelahay xirsi Ali Xaaji Xasan oo dogeydeen inuu wasiirka madaxtooyada ana ka mid ahaa wasiirkii arrimaha gudaha wala wadina amniga aniga carruurtaydii gurigayga waxa soo weeray xirsi baa soo weeraray talada gurigayga lagu soo weeraray isaga bixiyay anigoo si nabadgelyo la qaban kar lahaa waxaan maanta halkan ka cadeynaa waxa la yiraahdo wasiirkaas ugu dagaalamay xabadda gurigayga maray ku dhacdo markuu baraarugnay gurigayga 12 rasaas laga riday xirsiin ka badan gurigayga 700 xabo rasaas ay ku riday taliyaashiina way joogaan amarkana isaga bixiyay maanta wuxuu haleeli kari waayay inuu carruurtiisa Hargeysa ku hayo Soomaalidu waxay tiraahdaa hiirtaayo qaba walaal ma xidhisho oo nin lama daba socdo xirsi wuxuu ahaa ninkii inta Nadiira Maxamed 7 bilood ay xidhnayd 7 bilood iyadoo aan la marin maxkamad maanta doonayay inuu yiraahdo ciidan baa wax xidhay iyo ciidan baa waxa sidaas sameeyay waxyaabo cajiibka ah waxaan xusuustaa taliyay ciidanka militariga General Chief waqtigii kala shaalay Sacuudi xirsi wuxuu fadhiyay miiska saraakiisha Chief waxa isku seegay war Chief wuxuu wada ciidanka ana xukuma iyo ciidanka gelin maayo si uu shacab loo laayo xirsi وأنكي تشريف واحد لجوب بدلي كلا شغلة دجال كجلي يعيدنا كان رجع حكومة بالعادة كنت هتاني تاريخ ذا دبيجين أرتوي عجيبة ومدن هذا اللي صور تجنال وعاد على هاي إن حسين أحمد عيديد حسين أحمد حنوي قانا أنا أحبور الماي سويت جوري سبع عيد بيه كم عبت فرت هذا ورد عيدك أقول لك تاريخ عفر كسين الساعة ما شفت جوري يقول بيه لك ما عبد حباش كذا حكاحش والله شاركاga ka xishooday inay gurigaaga biyo soo doontaan marka diiwa taariikh waxaan jecelahay inaan qodob ka yiraahdo awoodda dhulka Ismaaciil wuxuu yiri waxaan maayirka awood u leh sida ku qoran xeerka maamulka dhulka magaalooyinka ee qodobkiisa koobaad aan idin akhriyo eebaka saku
guud ahaan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa iska leh dawladda Soomaaliland